Soomaaliya waxay maraysaa meeshii ugu adkay oo taariikhda siyaasadeeda ay marto warkaas marka aan leeyahay igama aha mucaarad baa tahay dawladda dhaliil waxa way dhaliishuna ima fududa xaqiiqatan ma ii fududa dhaliishu laakiinse waa dhabta jirta way oo laga boodi karin maantayto calaamad dawladeed markaad tiraahdid kow maxaa waa constitutionkii ummadda Soomaaliyeed iyo dastuurkii ay ku heshiisay waa la tuuray midka Cabdiraxmaan Fuchs u bixiyaa lagu bedelay waxa weeye micnaheedu ummad ama dawlad aan heshiiskii ay ku heshiiso dariiqa ku mari lahayd daaqada ka tuurto miday ayadu taqaano boobsiis lagu sameeyay anna laga tashan qaadatay waa dawladnimada aan iska deyno maya ma deynayna dawladnimada waa eedaynayna constitutionkeennii laysku ogaana waa inuu shaqeeyo oon soo celino taas waa ku eedaynayaa waxa kaloo la yaab leh doorasho sidii laysku yaqaanay ilaa iyo muddadii dawlad la'aanta aanu ahayn ilaa iyo muddadii dawladaha tabarta yaranu ay soo jireen waxa aan marna la khaldin waxay ahayd doorasho laga heshiiyey oo komishinkeeda shuruucdeeda habraaceeda si la yaqaan loogu heshiiyey yaa waqti mucayin oo la isla ogol yahay la aadi jiray maantayto wixii wax ka duwan yaa la qorsheynayaa waxaasina waxay keeni karaan in ummadda Soomaalida oo aan u dayrinayno waqtiga adagna ku jirta inay sii kala fogaato inaan meesha hadda aan ka ilmaynayno oo aan leenahay way adag tahay meel ka xun inaan ku sii dhacno ilaahay nooma qadaro taasi waa xaqii doorashada waxa kaloo anigu waxaan akhriyay iyo waxaan u soo joogay labadaba aan ogahay siyaasadda Soomaalida waqtigii ilaa waqtigii xorriyadda principle aan ku jirin wali aan arag nooc walba oo dawladihii dalkan way soo martay waliba waqtiyadii dambe principle kala dhaho loo joojin mahay dadkii rabaa ha baxeen waa dalku ha kala go'o waa dalku ha kala tago waa Hargeysa meeshay marayso raalli baan ka ahay waa garoway saa doontid ku tasho waa Jubbaland saa doontid u tasho waa koonfur galbeed ay saa rabtid yeel oo maxaa noo soo haray waxaa noo soo harahaya villa Soomaaliya oo intana la ka galbiyo ciidamo shisheeye naga galbiyaan airportka intana geeyaan galbiski laftigiisiina noo ku soo celiyo Soomaaliyada naqaanay ma kaga samri karnaa galbis villa Soomaaliya ka bilowda oo ku soo laabta maya waa ka hanweynahay ka badan baanu mudanahay dawladnimo weyn baan mudanahay waxaan si buuxda u eedaynayaa ka boodista laga booday constitutionka doorashada degdega ah oo gaarka ah oo loo dhamayn iyo mabda'an la yaab kale oo la yiraahdo loo joojin mahayo oo marna soo koobi doono marka dambana xataa hadii la yiraahdo degmadii hawlwadaag waa tala gooni ah ay damacsan tahay hawlwadaag loo joojin mahayo soo socota xaqiiqatan waa principle-ka dhibka badan oo nagu soo kordhay intaas ayaan ku soo koobahayaa waxaan noo rajaynayaa in bilowgan hadda aynu bilownay oo ah siyaasaddu waa madaxa umuuraha oo dhan madaxooda waaye haddii qofku madaxa uu ka jiran yahay xubnihiisa kaloo dhan waxa weeye caafimaadkeedu wax badan ma laha waxaanun horseedaynaa in dalku madaxa ka caafimaado in siyaasad la isku halayn karo iyo dad la isku halayn karo aynu keeno yaanu xoog saaraynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo suura geliyo idinkuna taakulayntiina iyo fahamkiina inaad la timaadaan baan rajaynayaa waa mahadsantihiin